isugu nimid dhammaan waxaan hortan casintay khadro oo ah gabar walaashii ah xisuu ka yeertay inaanu ka turjunno shucuurta ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed caawa waxa u soo hoytay guushaas oo ah inay shacabku hamigooda iyo riyadoodii u rumooday oo madaxweyne ay ku faraxsan yihiin ayna aaminsan yihiin oo maanta qabsaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taamarka hore waxaan leeyahay waa hambalyeynaa mid labaadna waxaan leeyahay waxa aaminsana inay tahay maanta maalintii ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba Israaciil lahayd midoobi lahayd isku tashan lahayd ka tashan lahayd shisheeye iyo wuxuu siin lahaa iyo cadow iyo wixii la mid ah marka farxadda ayada ah ee adduunka daafiisa meel bal isaga soo baxay aan la koobi karin inta ay maanta qiirada iyadu ay taagan tahay xilligaan oo xilli habeen anaga noo ah barafka uu lawyaha iyagu dhaafay ayaanu kullu waxaan isaga nimid afarta daafood si aanu u muujino shucuurtayada dareenkayaga inuu hambalyeeno madaxweynaha iyaga cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay guul ilaahay ha kugu garab galo cadowga Allah ka qabto noqokii dalkiisa dadkiisa oo anfaco sidii ku soo gashay doorashada dalka iyo danta iyo dalka tiibaan anagu wili taageersanahay waxaana leeyahay insha Allah bilkariim waxaanu rajaynaynaa sa u dhannahay wadankaygu noqon doono wadan asaga loo soo baahi tago ee aanu baahida iyo faqriga iyo xinka iyo xasanada iyo qoriga iyo qiica iyo qaxa aanu ka bixi doono intaas aan uga baxayaano halkan waxaan isugu nimid anagoo haweenkii magaalada Aarhus ah ama wadanka Denmark magaalada Aarhus waxaan rabnaa inaan u hambalyeeno madaxweynaha iyaga cusub oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo raxiim caawa waxaan isugu nimaadnay xafladii u soo dhaweynaynay madaxweynaheena Farmaajo waxaan leenahay Farmaajo hambalyo waan ku hambalyeynaynaa insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay mataqaanaa xilka aan qabatay uu kugu guuleysiiyo oo insha Allah wixii aad maxay ii sheeg ballamo iyo aad qaaday inaad ballamihii iyo mataqaanaa shacbigiyaagii Soomaaliyeed anahay inaad noo samaysid inaad wax allaale waxaadna tiri oo maanta wax badan baan kugu tuumeynaa khayr badan khayrkaas waxaan rabnaa inaad wax allaale maanta waxaan kugu tuunno waa wada khayr iyo wanaag iyo maxaan ku dhahaye lama soo koobi karo wanaagaaga macnaha taas baan annaga maxay ii sheegay Farmaajo ku dooranay taas baan kugu raacnay kalsoonidii aad nagashatay oo mataqaanaayo naga samaysatay ban ilaa maanta ku haynaa aad iyo aad maanta Soomaali Maxamed baa ku wada taagan dadkaagii iyo dalkaagii baa ku dhahaye Farmaajo soo dhawow dal iyo dibad baa lagaaga banaan baxay TV-yada waa la socotaa umaleynaya waxaana weligeed dhicin baa dhacay marka Farmaajo waxaan ku leenahay hambalyo kun jeer hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan uga hambaleynayaa madaxweynaheena cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo insha Allah waxaan rajeynayaa guul iyo goobnimo iyo nabad insha Allah thanks caawa halkan waxaan uga hambaleynaynaa oo farxadiisa iyo baashaalkiisa isugu nimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow balantii shacabka u qaadayna say ahayd u fuli assalaamu calaykum الرحمن الرحيم caawa halkan waxaan nagu marti qaaday Khadro waa hordhici feestadii loo qaban lahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo sagootintii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo soo dhaweyntii Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo xilka loo dhiibay waa xil culus waxa loo dhiibay wax sahlan maaha ilaahay ha ku guuleeyo annaga waa u soo duceynaynaa xaflad waxa ka muhiimsan la qabto waa isxasuusin laakiin ilaahay ha ku guuleeyo xil adaga loo dhiibay ilaahay kii halkii ka sii wanaagsan geeya ilaahay taas uga rajaynaynaa waa u soo duceynaynaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu naga mudan yahay asagana duco iyo hambalyo sida sharafta leh oo karaamadu ku jirto oo u dhiibay xilkaas u wareejiyay waana u dhalasho horey u wareejin jireen Sheekh Shariif Sheekh Maxamuud isagana ku wareejiyay ma sha Allah waxa ka dhacay Soomaaliya wax dimuqraadi ka wanaagsan ka Soomaali dhaqankeedaba waxay ahayd dimuqraadi iska ahayd dad isla dhashay oo isu dhiiba wixii ay biri kala haayeen oo kale marka ilaahay waxa uga rajaynaynaa shaqo fiican uu soo qabtay hawl badan uu soo qabtay
wax la inkiri karo ama la iska dhaga tiri kara ma aha meel weyn oo sharaf leh oo karaamo leh iyo calan Soomaaliyeed maalintii la qaabilay ayaa isaga Ilaahay ku aadiyay oo Ilaahay ku karaameeyay haddana xildhibaanadii oo soo doortay isagana waa u mahad celinaynaa oo ayagana doortay madaxweynihii Soomaaliya ay rabtay ama ay ku qanacsanaayeen iyaga ay doorteen annagana Ilaahay ha nooga dhigo kuwii macnaha biri keeni lahaay qof walba iyo codkeeda ayaan ka rajaynaynaa farmaajo haddii Ilaahay yiraahdo iyo baarlamaanka jooga iyo la xisaabtan iyo muxuu ahaa inay ciidankii sameeyaan oo ciidamada ay naga saaraan huwanta ah na kor saaran ee danahooda gaarka ah wata Ilaahay saasaan ka rajaynaynaa muxuu ahaa maantana waa hordhici waa magaalada Aarhus waa gurigii Qadro waxaa noo rabnaa inaan samayno xafladii madaxweynaha haddii Ilaahay yiraahdo iyo madaxweynaheenii hore oon cidna iloobi karin Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dhammaan Ilaahay ku guuleeyo xilka annagana kuwii dawladooda adeeci lahaa Ilaahay ha naga dhigo mar walba waxaan ku xiranahay dadkeena iyo shacabkeena iyo qofka ay rabaan baa annagana ku xiranahay iyo cidii wax u qabanaysa waana mahadsantihiin iyo inta martida sharafta leh Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo ha israacdo ameen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa salaamantihiin gabdhaha sharafta badan ee Soomaaliyeed oo halkaan yimid inay xafladan ka soo qayb galaan munaasabadan waa munaasabad aad maanta qaali noogu ah maalinta ka dambaysa waxaad moodaa inaan sidii ka sii fiicnaanayno oo sharaf badan noo soo hooyanayso mar xataa calankeena la qarinayay baanu gaarnay waqti la qarinayay anigu waxaan maanta munaasabadan ay ku saabsantahay inaan sagootinayno madaxweynihii hore oo isagu run ahaantii waqti xilli xun oo aad u fool xun soo maray una gegsaday inuu ka soo gudbo oo ilaa ay maartay Soomaaliya ay madaxweyne kale ay yeelato oo isaga bedela asaga waan u hambalyeynaa waana sagootinaynaa waxaan leenahay wax fiican baad soo qabatay wax fiican baad samaysay ma oranayno ma si haraati kuma sii ridayno muddo badan buu u soo halgamay dhib kasta oo ku qabayna uu ka soo baxay madaxweynaha hadda Farmaajo waa ku sacabaynay oo ciriga dhulba waa ka qalinay laakiin waxaan ka baqaynaa hanagu bariiqashay inaga ilaali anigu sidaan anigu fikirayo gabdhaha Soomaaliyeed gudaha ayagaa dalka dhishay ayagaana dhisay ilaa kuwa hadda waxaa jira maalinta anagu inta halkan aan nimid oo anagu iska xaragoonayno dharka qurux badan qabno waad noo jeedaa saan qurux badan adiga laftaadu saasaad qurux badan intaad gurub tagtay meelahaas marka sidaas waxaan leenahay adiguna annagana waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa in gabdhaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka gudihiisa oo intaasoo dhiba soo gabsaday mid ninkeedii kaga dhintay mid wiilkeedii kaga dhintay mid iyadoo dhaawacantay haddana weli halgamaya anigu gacan weyn baan uga taagay aniga magacayga waxaa la yiraahdaa horta Cambar Xaashi Nuur waxaan ahaa dadkii muxuu ahaa rijibka Soomaaliya ka soo shaqeeyay waxaan ka mid noqday muxuu ahaa ururka haweenka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa guddigiisa fulintan ka mid noqday waxaan noqday wakiil xisbi intaasoo shaqaana waan soo qabtay laakiin haddana dhibtaan aan soo marayno annaga ka roonayno markii jubtii horeba dagaalkii sokeeyuhu u dhacay waan ka soo baxay dalka laakiin waxaa iga wanaagsan wixii hore iyo halgankii aan sameeyo tirada badnaa oo 20 iyo dhowrka sano aan ka soo halgamay waxaa iga sii fiican taasi wixii aan qabtay oo dhan waxaa iga sii fiican kuwa ilaa haddeer ku nool oo jubta ku nool oo xabadda aan dareemayn oo dhibaatada dareemayn marka gabdhaha Soomaalidu waa qani waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed hadday joogaan dibad iyo hadday guda joogaanba Ilaahay ha dhowro Ilaahay ha xifdiyo ilmahooda iyo awlaadooda Allah ha xifdiyo waana waxaan ku dhihi lahaa Farmaajo magacaaga kale waa iska daynaya kana qaali oo dadkii kugu bartay oo labadii qof ay iska daba ordaysa Farmaajo ilayeen sida Farmaajo ku leenahay wax fiican sheeg oo wax fiican aan ka aragno oo wax fiican oo isbedel aan ka aragno waan ku fikiraynaa qalbigeenu wuxuu ka fikirayaa midda koowaad oo ugu daran oo aan leeyahay aniga maskaxdayda ka guuxaysa haddaan ahay Cambar Xaashi Nuur waxa weeye ninka madax ma noqon karo haddaan ciidan isaga leeyahay oon ka naxayaa oo garabka u taagnayn ku dadaal ciidanka ardada iyo dhalinyarada iyo haweenka intaba ay gacantaada ay galaan
markaasaa soomaaliya wax u qaban kartaa haddii ay noqoto inaad haweenkii yastoo ka tagto ardada iyo iskooladaad yastoo ka tagto ciidamadaadii oo guuxayay aad garabkaaga aad ka weydo aad baa umahadsantihiin aad ba weyda I love you all waxaan anigu aad iyo aad ugu farxayaa markaan kaa arko adoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya geesaha ka socdo uusan nin kale oo madow iyo mid kale oo cad iyo mid kale oo askari aan laafaha geesaha haddaan aan ka waayo markaasaan dhimashadu iyo xalaal tahay aniga markaan cambar ahaan iska hadlo markaan gabdhaha Soomaaliya magacooda ku hadlo anigu ku hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed oo qaali weey gabdhuhu kuwii soo caranay ilmihii ayaga xanaaneeyay oo dibadda u soo orday oo dagaalka sokeeye ka soo orday ilmihii ayaga qaatay oo caruurtii idin koriyay oo caruurta Soomaaliyeed maanta ayaga gudaha iskoolka u dhigay wax walba kuwa gudaha joogaana biyaha idinka daba sideen biyaha idinka daba qaadeen kii dhintay qaadanayeen dhiigii bay ka dhaqaayeen marka fiiro gaar ah waxaa loo baahan yahay in la siiyo dadka cadaalad darradu ay hayso cadaalad darrada waxa ugu sii daran ardada cadaalad darradeeda waxbarashada cadaalad darrada haysata cadaaladda xumada haysata haweenka cadaaladooda inaad kor u qaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geestaada inuu ka soo istaago markaasaan waxaan dareemayaa inay guul dhacday oo wax weyn dhaceen oo isbedel inuu Soomaaliya ku dhacay markaan arko aan tago anigu waxaan tagay airportka markaan tagay waxaa ii tuuray oo ii kala tuuray nin aan aqoon oo noociisana aan noocayga ahayn marka sidaas daraadeed waxaan ilaahay ban ka magan galay inaanan mar damba aan ku soo noqon ayadoo nin askariya oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama biliiska Soomaaliya ahayn oo riixaya inaan ka waayo meelaha anigu aan tagayo markaasay gabdhaha Soomaaliyeed way farxayaan waan soo soconaa na soo dhaweey oo waxaan rabnaa inaan caleemo qoyan nagu soo dhaweyso markee diyaar baan nahay aqoontii baan haynaa maskaxdii baan haynaa sharaftii baan haynaa garabkaagana waan taaganahay waxaan ku leeyahay annagana kaalmee adiguna iskaalmee calamkana kaalmee dadkana kaalmee calankana kaalmee saasaan ku dhahayaa aan ku leeyahay insha Allah ilaahay السلام عليكم waxaan caaw halkaan isku imaanay soo dhaweynta madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sagootinta maxay ahayd madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo walaashana baayday khadra qaali gurigeeda isugu imaanay waxaan leeyahay oo guriyaan leeyahay Farmaajo xilkan Allah ku fududeey amiin ilaahay u fududeey xilka maan raxiim halkaan waxaan iskugu nimid caawa horta gurigii khadra qaali gurigooda ayaan joognaa oo casumaad noo fidiyeen oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub madaxweyne Farmaajo marka annagoo dumarkii Soomaaliyeed ah oo ku noolaa dalka Denmark aan ahaan Aarhus baa iskugu nimid oo waliba waa noo dambaysaa oo ciyaar waa gali dambaa la yiri hadda waa hordhici weeye iyo isku dubaridkii iyo abaabulkii baan ku jirnaa tii ka weyneed way noo dambaysaa marka waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan ku leenahay sacabo furan ku soo dhawow waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryeynaa kii dalka iyo diinta iyo dadkiisaba anfaca in ilaahay uu ka dhigo Soomaaliya way soo dhibtootay wax badan bay soo dhibtootay haweenku wax badan bay ooyeen caruurtii wax badan bay ooyeen ragii wax badan buu ooyay habar badan wax badan bay gablantay marka walaalow madaxweynaheena cusubow waxaan ka codsanaynaa in aad tubta qeyrka qabta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka yahay in aad ku hagtid oo ummadaas silaca ku jira aad ka bixisid annagoo dhan oo ku nool dibadaha wadamada kale ha noqoto annaga gaar ahaan Denmark ayaan deganahay diyaar waxaan u nahay in annagana aan wadankeeni guryaheeni geedkeena hoostiisa aan fariisan jirnay oo cadayga afka intaan gashano aan ku cadayan jirnay oo dariska iskugu salaami jirnay in aan hoos fariisano marka kii waxa isku ka soo celiya oo ummadiisa isku wada ilaahay ha ka dhigo ma in ummadaas oo dhan way ku jecel yihiin
intaas ummad wada ilmaysay odayaal habro caruuro wiil yar oo 4 sano jira xataa hadlaya waan arkay ubuucda iga soo dhacdo waan ooyay wiil indhoolo ahaan arkay farmaajo sidaas lagu tabayo sidaas lagu soo ordayo biidmillaahi kariim kii wax u tara Allah ka dhigo kii wax u tara Allah ka dhigo annagana kuwii ayagoo nabada wadankooda ku soo noqdo Allah naga dhigo waxbaan ku farnay farmaajo adiga maanta inaad dhexda xiratid oo Soomaaliya sideeda hore ku soo celisid baa laga doonayaa waxaan sheegayaa halkaan oo ka cadeynaya caawa inaan ciidamadayadii Soomaaliya ee xooga dalka ee dib noogu soo noqdaan waliba waxaan diyaar u nahay dumarka qaarkii anigu ka koowahay in ciidanka la qoro diyaar baa oo xaqiiq in ciidanka aqoon marka waxa weey waa inaan ciidanka xoojinaa wallahi saddex Soomaaliya midowdo saxarkii baxayo dhamaaday Soomaaliya midowdo saxarkii baxayo dhamaaday haseexan soo jeedo si weyn u foojigno guul haleena farmaajo haseexan xilbaad sida haseexan nin lagu seexdo haseexan xilbaad sida haseexan soo jeedo si weyn u foojigno Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Come on,